Assalaamu calaykum asxaabta ku xiran channelka macluumaad. Guushu waa waxa ay dadka dhammaan u wada dagaalamaan, si fududna kuma timaado. Waxay qaadan doontaa shaqo adag, dulqaad iyo waqti dheer si aad u noqoto mid guul gaaray. Waa inaad u dhabar adeegtaa sida aad u gaari lahayd rajadaada. Waxaadna ku dayan kartaa dadka hore u xaqiijiyay guulaha adigoo raacaya wadooyinkii ay qaadeen. Halkan waxaan kugu soo gudbinayaa 7 qodob kuwa oo ka saacidi doona inaad xaqiijiso hadafyadaada. Inta aan fiidiyogani u guda galin, haddii aad ka mid tahay asxaabta nagu cusub, fadlan nagu soo biiro taaba calaamadda subscribe-ka, muuqaalkan like saar, wixii fikradaadna commentiga nagu soo dhiib. Qodobka 1, waqti hore hurdada ka kac. Shakhsiyaadka guusha gaaray ma aha kuwa iska hurda goor dambe ama dib u dhiga howlahooda. Waxay u shaqeeyaan si aad iyo aad u adag maalin waliba ilaa ay ka gaaraan ujeedooyinkooda. Si waliba ay u adag tahay, waqti hore kac, si buuxdana u diiradda u saar hadafkaaga si aad uga dhabayn lahayd. Dadka kaca waqti hore waxay hal tilaabo ka horeeyaan kuwa hurdada ku daaha. Marka aad kacdid goor hore, waxaad haysataa waqti dheeraad ah oo aad ku qorsheysan karto howlahaaga. Sidoo kale waxaad helaysaa xasilooni nafsadeed. Sidaa darteed, haddii aad horey u ahayd qof hurdada ku daaha, bilow berito inaad waqti hore ka kacdo. Waxay qaadan doontaa maalmo si aad ula qabsato, laakiin waa hubaal waxay ku horseedi doontaa inaad wax badan xaqiijiso. Hana ilaawin inaad jiifsato waqti hore si aad u soo toosto waqti hore. Qodobka 2, u diyaar garow saacado ka hor. Subax waliba waa inaad qorsheysaa oo aad ka fikirtaa sida aad u dhaqmi lahayd iyo waxa aad qaban lahayd maalintaasi. Sameyso qorshe. Ha u dhaqmin sida xoolaha oo iska soo kaca misna iska socda. Xusuusnow, haddii aad samaysato qorshe adag, ma dhici doonto inaad la kulanto waxyaabo ay kugu adag tahay inaad xakamayso. Ninka lagu magacaabo Alan Lakin ayaa yiri, qorsheyntu waxay horseedaysaa inaad mustaqbalkaaga keensato xaadirka si aad wax badan uga beddesho. Haddii aanad lahayn qorshe habboon, diyaar uma noqon kartid inaad iska caabiso caqabadaha. Qorsheyntu waxay sare u qaadi doontaa wax soo saarkaaga. Qodobka 3, yeelo kalsooni nafsadeed. Waa shay aad u muhiimsan inaad ogaato heerka aad nafsadaada rumaysan tahay. Waa inaad nafsadaada aaminsan tahay. Dad badan ayaa u dagaalamaya goorta ay rajadooda u rumowi lahayd. Laakiin ogow, kuwa aaminsan awoodda naftooda, aaminsanna in wax sax ah ay qabanayaan, waa kuwa mar waliba ku guuleysta nolosha. Si aad u hesho kalsooni nafsadeed, waxay tahay inaad aaminto xirfadahaaga gaarka ah, hadafyadaada, iyo karti u lahaanshahaaga inaad gaari karto guulahaaga. Guud ahaan, aaminsanaanta nafsadaada waxay kuu ogolaanaysaa inaad sare u kacdo oo aad gaarto yoolalkaaga. Qodobka 4, yeelo ujeedooyin. Badanaa waxaad la yaabtaa sida shakhsiyaadka ugu guulaha badan dunida ay u xaqiijiyeen dhammaan hadafyadooda. Maxaa ku dhiirigeliyo intooda badan in ay gaaraan guulahaasi? Sirta ayaa ah, waxay leeyihiin ujeedooyin. Waxay doonayaan inay dadku u caddeeyaan qofka ay yihiin iyaga iyo in wax waliba ay qaban karaan. Guushu uma baahna inaad buundooyin sare ka haysato heerarka waxbarasheed. Kaliya waxay u baahan tahay inaad yeelato asbaabo kugu riixaya inaad heerkaasi gaarto. Haddii aad doonayso inaad ku guuleysato hadafyadaada, waxaa laga maarmaan ah inaad yeelato sababo kugu dhiirigelinaya waxa aad qabanayso. Qodobka 5, akhri. Dhab ahaantii ummadeena Soomaaliya aad bay ugu yartaa wax akhrintu. Mid ka mid ah suxufiyiinta caalamka ayaa wuxuu su'aalay Bill Gates oo ah ninka ugu taajirsan caalamka dhanka hodantinimada ama lacagta. Su'aasha uu weydiiyay waxay ahayd sidan: waa maxay awoodda aad jeclaan lahayd inaad lahaato ama milkiiso? Bill Gates wuxuu ku jawaabay, waxaan jeclaan lahaa inaan lahaado awood aan si degdeg ah wax ugu akhrin karo si aan buugaag badan u akhriyo. Guushu ma aha lacag tiro badan, guryo aad u dhaadheer, iyo waxyaabo badan oo ay dadku ku fekeraan. Akhrintu waa shay muhiim ah sababtoo ah waxay kobcisaa maskaxda. Waana dhaqan ka dhexeeya dhammaan dadka guulaha gaaray, kuwooda hadda nool iyo inta dhimatayba. Qodobka 6, yeelo firfircooni. Shayga ugu qaalisan aan anagu haysano ayaa ah waqtigu. Sidoo kalena tamartu waa shayga ugu muhiimsan. Haysashada firfircoonida jirka waxay fududeynaysaa isu socodka dhiigga maskaxda, waxayna kordhinaysaa feejignaantaada.
jimicsigu ma aha keliya inuu kaa caawinayo jirka, sidoo kale wuxuu yareeyaa walwalka. Qofkuna wuxuu siiyaa awood uu wax badan ku qabsan karo. Shayga ugu muhiimsan ee laga helo jimicsiga ayaa ah inuu qofka kororsanayo kalsooni nafsadeed. Samee tababar jireed si qayb ka mid ah noloshaada aad kor ugu qaado iyo si aad u kordhiso fursadahaaga guusha. Qodobka 7 ee ah kan ugu dambeeya: iska daa cudurdaarka. Dhammaan dadka intooda badan waxay isticmaalaan marmarsiyo si ay uga fogaadaan eedeynta iyo waxyaabaha la midka ah. Qofna ma laha nolol dhammaystiran. Dhammaanteena waxaa la kulmaynaa caqabado iyo in ay arrimaheenu isku kala qasmaan. Laga yaabay inaad qaladaad badan samayso, nafsadaadana ku siiso sababo aad ku marmarsiyoto. Ha ka baqin inaad guuldareysato, waayo guuldaradu waa qayb ka mid ah guusha. Iska ilow waxaa soo idil, hore u soco, kana faa'iidayso dhiirigelinta. Kuna kalsoonow Rabbigaaga subxaanahu wa tacaala oo u isticmaal waqtigaaga si aad wax badan uga baran lahayd qaladaadkaaga. Waxaan rajaynayaa muuqaalkan inuu wax badan kaa saaciday. Haddii aad doonayso inaan kordhino muuqaaladan oo kale, fadlan commentiga hoos noogu soo qor. Hana iloowin inaad like gareyso muuqaalkan, lana wadaag asxaabtaada si ay sidoo kale uga faa'iidaystaan. Aad u mahadsantihiin dhammaantiinaba.